بسم الله الرحمن الرحيم مقيارتي جارسي marka la soo dhawaada waxaan hore u sii wadi doonaa casharradeena Microsoft Excel maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeeni 17 oo ka tirsan Microsoft Excel casharka maanta waxaan ku baran doonaa basic formulas-ka ayadoo daba ka doono cashirkii Korea cashirkan 16aad ee aan ku barnay formulooyinka sida isku darka kala jarka isku dhufashada isku qaybinta maanta waxaan baran doonaa marka farsamooyinka inta oo Excel kale yahay oo isticmaali kartid marka rabtid inaad basic formulas-ka isticmaashid tusaale sum markii aad sameeyno inaad isticmaalo ku soo dhaw cashirkeena maanta markii aad soo kacsatid Microsoft Excel-ka sida hore u sheegnabo documentiga si practical ah u sameeyso waxa kala digi doontaa YouTube-ka qaybta description-ka markii aad soo furatid wuxuu ku sii doonaa instruction-ka maanta marka waxa baran doonaa saddex way oo aan ku sameyn karno in aan sum aan sameeyno ama isku dar in aan sameeyno marka dimensions wuxuu ku tusi doonaa isku daryo hore loo sameeyay marka oo total hours-ka uu shaqeeyo qofkan ayadoo la isku soo ururinayo marka aan toos ugu gudubna marka qaybta practice-ka si aan u aragno marka sida ay u dhacayso tusaale waxaan rabnaa qof volunteer hours-ka uu shaqeeyay in aan xisaabino qof walba marka waqtiga uu shaqeeyay nuux ayaa ugu horeeyo nuux isniin 3 saac uu shaqeeyay talaadii 4 saac uu shaqeeyay arbacadii ma shaqeynin khamiis 4 saac uu shaqeeyay jimcaha 4 saac uu shaqeeyay marka aan rabno marka basic formulas-ka hore marka abareen waxaan dhihi jirnay inaan dhahno equal then maalinta koowaad waxa uu shaqeeyay lagu daray adagoo shiftiga la qabanayo calaamadda balasta kadib aad doorato cell-ka labaad lagu daray kadib cell-ka saddexaad lagu daray kadib cell-ka afraad lagu daray iyo cell-ka ugu dambeeya marka dan waxa dhaysa inta waxa ku sheegaa total hours-ka uu shaqeeyay maxaa la yiraahdaa nuux marka tan waxay ahayd waa basic hore maanta marka waxa baran doonaa qaab kale oo ka fudud ee u sameyn kareen sababtoo Excel-ka hadii oo dheeraado rubiska ee bataan ma ku suurtagelaysa inaad maanta dhan mid aad click u siiso marka qaab kale ee loo sameyn karo waxay tahay inaan dhahno equal sum oo ah isku geynta kadibna aan soo doorano range-ga aan u baahanahay taas rabaa inaad iska soo darto bracket-ka ku xir enter dheh si automatic ah waxa ku sii doonaa range-ga aad doorato waxay noqonaysaa oo same la ah isku darkeeda aad sameynay 14 ah in aad ku sameysay marka sidoo kale waxaa sameyn karnaa maxaa la yiraahdaa in aan dhahno range-ga inaad soo doorano qaybta labaad ah range-gan ayaa u baahanahay in aad tagto halkan loo yaqaan editing halkaas aad ka dooratay marka aad furtid waxa ku arki doontaa sum average wuxuu dhan marka santa ayadoo ku saaran tahay ku dhufo kaliya okay kule si automatic wuxuu ku sameyn doonaa range-ga isoo isticmaalaya qaacidadii sum ahayd isoo isticmaalayo ay ku sameyn doonaa marka qofka koowaad aad sameysay sida caadiga ahayd teamka kale inta waxa sameyn kartaa autofill ay hal mar double click ku sii kartaa si automatic leh ay u sameyn doonaa kan u dambeeyo wuxuu 0 uga dhigay xog kuma jirto oo waa total grading marka waxaa rabnaa inaan isugu soo darno si maxaa la yiraahdaa joog ah markii aad heshid rowga dhamaantiis waxa uu ka shaqeynayo dan totalka saacadaha la shaqeeyo guud marka aad rabtid waxa sameyn karnaa waxa leenahay equal sum halka aan rabno inaan ku sameyno tab kadib waxa sameynaysaa range-ga soo dooranaysaa bracket ay ku xiraysaa tan okay 74 saacadood ayaa la shaqeeyay kadib waxa u gudubtay key answer-ka si aad u ogaatid in waxa ku soo baxay la mid tahay wixii aad soo saarnay marka maanta waxa qaadana marka sidee sum loo isticmaalaa ama ways-ka aad ugu sameyn kartid sum marka isticmaalaysid waa nooc shirkeena dambe insha Allah